walba mala awal beena iyo muran qabiil dhaafa Soomaaliyay toosan midigta isqabsada oo hadeed meel u wada jeesta Soomaaliyay toosan marti dunida ayaydan ku noqon maanta dabadeedii Soomaaliyay toosan waayahay asxaabay safarkii maanta oo ku tagay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Xamse Cabdi Barre magaalada Laascaanood runtii waa safar taariikhi ah reer qaatumo maanta waxay u ahayd maalin weyn maalin faysta ah waa hogaamiyihii ugu sareeyay muddo aad u dheer ah halkaasi taga kadib Xamse Cabdi Barre runtii magaalada Laascaanood markii uu tagay waxaa loogu soo dhaweeyay si aan la arag oo aan la maqal ayaa loogu soo dhaweeyay xaqiiqatan waxaa halkaasi ka baxay Somaliland sheegashadii ay sheeganaysay magaaladaasi iyo gobolkaasi in ay yacni ka tirsan yihiin Somaliland xarigaasi ayaa kow oo maanta uu siiyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre reer qaatumo maanta ra'iisul wasaaraha wuxuu cadeeyay in ay Soomaali weyn ay ka mid yihiin Somaliland gooni ay iskula buusaysay oo ayada laftigeeda ayaaba Soomaaliya ah sida maanta Xasan Sheekh oo ka sheegay shirkii Turkiga magaalada Antalya ka dhacayay waa qayb ka mid ah Soomaaliya ayuu Somaliland yiri waxaan leenahay marka maanta muddo dheer kadib hogaamiye sare oo Laascaano tagay wuxuu noqday Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya reer qaatumo marka runtii maanta waxay u ahayd maalin weyn ayay u ahayd waxaana soo ifbaxaya warar sheegaya in qaatumo state loo aqoonsan doono mar dhow maamul la yaqaano oo maamul goboleed ah oo ka tirsan maamul goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalka Soomaaliya reer qaatumo waxaan leeyahay guul ayaa idin rajaynaya insha Allah tagistaan uu tagay ra'iisul wasaaraha ha noqoto tii Soomaaliya midayn lahayd safarkan ra'iisul wasaaraha waxaa lagu macneeyay safarka midaynta Soomaaliya marka insha Allah waxaan rajaynayaa in uu noqdo safar ummadda dhan mideeya ra'iisul wasaarahana uu noqdo ra'iisul wasaare mideeya ummadda Soomaaliyeed marka insha Allah ra'iisul wasaarihi maanta waa tagay Laascaano si wanaagsan ayaa loogu soo dhaweeyay waa loo hagar baxay ummadii aad ay ugu faraxday reer Laascaano maanta tagistii halkaas u tagay ra'iisul wasaaraha marka insha Allah waxaan leenahay marka guul iyo gobonimo Soomaaliya oo mid ah ayaan rajaynaynaa insha Allah ugu bishaareynayna macaamiisheena in qiimo dhimis ballaaran aan ku sameynay xirmooyinka maalinlaha iyo midka billaha xirmada maalinlaha ee casri ku shuba $1 oo hel data internet iyo ku hadal aan xadidnayn muddo 36 saacadood ah halka markii hore lagu heli jiray 24 saac oo kaliya xirmada billaha ee casri ku shuba $13 oo hel data internet iyo ku hadal aan xadidnayn muddo bil ah halka markii hore qiimaheedu ahaa $15 uga shuba dahab koon nambarka xidig 114 gees ama dahab reseller xidig 304 gees fiiro gaar ah qiimo dhimistu waxay soconaysaa muddo kooban